Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal waa Shubaal Media oo halkan idinka soo gudbinaya fiideo aanu kaga waramayno taariikhdii mid ka mid ah suldaamadii soo maray dowladdii Cusmaaniyiinta ee awoodda badneed ee fadhigeedu ahaa dalka Turkiga. Haddaba waxaanu ka waramaynaa kumuu ahaa Suldaan Cabdixamiidkii labaad ee soo qabtay talada dowladdii Cusmaaniyiinta isagoo ahaa suldaankii ugu dambeeyay. oo marka aanu leenahay suldaankii ugu dambeeyay walow uu ka dambeeyay walaalkii hase ahaatee uu isagu ahaa midkii ku caanka baxay inuu isbeddel weyn ku sameeyo amaba uu siyaasad ahaan iyo diin ahaan uu u horumariyo dowladdii Cusmaaniyiinta. Haddaba Suldaan Cabdixamiidkii labaad waxa uu saldanadaasi maamulayay dabayaaqadii qarnigii 18aad ilaa horaantii qarnigii 19aad. Suldaan Cabdixamiidka labaad waxa uu ku dhashay Istanbul 21 Sebtembar 1842 isagoo ku barbaaray mid ka mid ah qasriyada dowladdii Cusmaaniyiinta ee ku yaalay magaalada Istanbul. Wuxuu suldaanku ku hadli jiray luqado fara badan oo ay ka mid tahay luqadda Carabiga, Faransiiska iyo luqadda Beershiyaanka. Haddaba suldaanku waxa uu kusoo beegmay xilligii loo yaqaanay Tansimaad oo ahaa xilli ay boqortooyada Cusmaaniyiinta lagu sameeyay dib u habeyn aad u ballaaran. Qarnigii markuu ahaa 18aad taariikhdii 1839 Suldaan Cabdixamiidkii labaad wuxuu xukunka hayay oo uu maamulayay saldanadaasi 33 sano. Suldaanku waa suldaankii ugu horreeyay ee saxiixay dastuur ay leedahay dowladda Cusmaaniyiinta kaasoo dhidibada u aasay kana dhigay dastuur adag oo ay ku dhaqanto dowladda Cusmaaniyiinta aasaasina uu ah. Suldaan Cabdixamiid wuxuu aad ugu fiicnaa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu la socday horumarka dunida xilligaa ka jira waana uu la jaanqaaday amaba uu qayb libaax kaga qaatay sidii uu xilligaa dowladda Cusmaaniyiinta uga dhigi lahaa xukunkeeda mid ballaaran oo dunida ku fida. Haddaba Suldaan Cabdixamiidka labaad waxa uu kaloo uu ahaa suldaankii aadka u faafiyay diinta Islaamka isaga oo culimo u diray waqooyiga iyo koonfurta Afrika iyo weliba wadamada badan oo Asia oo xataa ay ku jirto dalka Japan. Suldaanku waxa uu ka talinayay amaba uu saldanadayay sidaanu idiin sheegnay muddo 33 sano ah isagoo fadhigiisu ahaa qasriga ugu weyn ee saldanadu ku lahayd magaalada Istanbul. Suldaanku waxa uu xoogga saaray inay diinta Islaamka noqoto mid ku baahda dunida oo dhan. Suldaan Cabdixamiid waxa uu kale oo uu ku caanbaxay oo uu u noqday ninkii ugu horreeyay ee amra sanadii markii ahayd 1900 in khad tareen ah loo yeelo dalka Turkiga oo dhan. Waa suldaankii ugu horreeyay ee amray in la mariyo jidadka tareenada ee uu haatan isticmaalaan dhammaan dalka Turkiga. Suldaan Cabdixamiid waxa uu kaloo xoojiyay xiriirka Ottomans ee dunida Islaamka isaga oo ka dhigay siyaasad aasaasi ah in ay Cusmaaniyiintu la yeeshaan xiriir dhow iyo mid fogba dalalka Islaamka. Haddaba tan iyo intuu xilka hayay Suldaan Cabdixamiid wuxuu adeegsaday magaca loo yaqaano Khaliifka kaasoo uu isaga loogu yeeri jiray. Suldaan Cabdixamiidkii labaad waxaa kaloo la sheegaa inuu yahay suldaankii aasaasay amaba abuuray naadiyada kubadda cagta ee haddeer qaarkood ka jira dalka Turkiga. Suldaan Cabdixamiid waxa uu la sheegaa in laga qaaday xukunka markii uu muddo 33 sano hayay isaga oo walaalkii ka yar lagu bedelay taasoo aanu fiidiyoogan qaybtiisa labaad aanu kaga sheekeen doono sababta suldaanka xilka looga qaaday looguna bedelay walaalkii. Hase ahaatee Suldaan Cabdixamiid oo 33 sano maamulayay xukuumaddii Cusmaaniyiinta waxa uu gaarsiiyay horumar
aad u weyn oo ay isugu jirto dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha dibadda iyo xoojinta xiriirka dunida Islaamka iyo fidinta diinta Islaamka. Waa Shubaal Media, tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh.